anigana hadafkaygu wuxuu ahaa ma ahayn dadkan waxay caabudeen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن داوديال ميل كستو هذا دونك كجوكتان هل كان نقد داونيسان وورباهنتا بروهان جنال سيدو كلا هدا وحاسيتوس نوقد داونيسان isla barteena Facebook ee Burhan Jannal qodobada barnaamijkeeni Somali Celebrity News aad ku daawan doontaan waxa kamid uguna waaweyn anigana hadafkaygu wuxuu ahaa ma ahayn dadkan waxay caabudayeen waxana sheego hadafkaygu ugu weyn wuxuu ahaa ninkii sheeganayay in uu shiiq yahay ee Samiixa Qaliil Maslax Mideeye iyo Umareen ku tilmaamay in ay yihiin qolyaha caabuda shaydaanka ama masooniyada ayaa mar kale waxa uu ka hadlay jawaabta ay bixisay walaasheen Samiixa Qaliil sidii Yurubtii Mareykanka u dhawaaday horta inay wax isku darsado maxaasabayso bulshada iyo dareen ku jiro qorta adigana dareen ku jiro hadii dareenka balance ka tii noloshana ina balance ka noqoto Samiixa Qaliil iyo Drisle Cabdi oo aad si fiican u wada taqaanaan baraha bulshadana ku soo bandhiga romantic ama lamaane ayaa waxa la filayaa in arooskoodu uu dhaco intaas waxay ahaayeen qodobadeena inta uu socdo barnaamijkeena Somali Celebrity News aad ku daawan doontaan sida aad barnaamijkeeni kan ka horeeyaba aad ku daawateen waxa maalmahan baraha bulshada la isla dhexmarayay hadalhayn weyn ka dhaliyay in Samiixa Qaliil ay ka mid tahay qolyaha caabuda shayaadiinta subhanallah laakiin ilaahay dartiis maanta waxa dhacday in Samiixa Qaliil ay soo fariisato barteeda YouTube-ka sida aan horeyba ugu sheegay in walaasheen ay inay soo fariisato waliba ay wax jira ka hadasho awalba anigu waan ogaa in Samiixa ay tahay qof muslim ku dhashay kuna dhiman doona waxyaabahaasna ay ka suurtoobin Samiixa Qaliil oo aad uga hadashay barnaamijkaas ayaa hadaladeedii waxa ka mid ahaa war maxaad ku falaysaa in aad tiraahdid qof muslim waxa uu caabuda shayaadiinta sidoo kale waxa ay sheegtay in ay tahay gabar muslimad waxaasna aysan suurtoobin waxa mar kale soo hadlay ninkii sheeganayay in uu yahay shiiqa ee Samiixa Qaliil ku tilmaamay inay caabudo qolyaha shayaadiinta waxa uu mar kale ka hadlay sababta ugu weyn ee uu ku tilmaamay in ay dhalinyaradan shayaadiinta caabudaan hadaba waa kana muuqaalkiisa ee ila daawada ayaan ka hortagay Samiixa Qaliil adeynteeda waan keenaya iyadana tiri adeynta keen maslax mideeye xadeetiisa waa keenaya iyo cumri labadaba wiyogodana haddaan soo daawaday qosol iyo waxay uga cadahay bahaabay uga cadahay waxaan dhabta arrintan diin weeyaan arrintan waxay taagan tahay dhab qosol iyo kaftan iyo comedy way dhamaatay abti kaftan way dhamaatay qosol uu isku soo dhamaaday arrintan waa arrin diin waa arrin khusaysa dadkan la sixrayo waa arrin khusaysa ummad dhan oo aqliyadeeda ma garanaysa la bedelayo la jeedinayo waa arrin khusaysa bulshadan kooda yar kooda weyn ka aabaha ka madaxda ku kasto khusaysa in la keenana ay habboon tahay sidaas awgeed cadeynta oo dhameystiran waxaan ballan ku qaadayaa haddii ilaahay nafta ii daayo in aan banaanka soo dhigo waxay doontaba ha igu qaadatee midna ku darsada haddii la idilo الحمد لله وبعت مسلم هل يدري إلهي درتي وما حكى ونحسن إلهي درتينا المدير وبعت مصعدين دي اللي يدري الشهيد بنهي دي اللي يحضر وخلوة إلهي سبحانه وتعالى أين قال عبادي سنية يقول كان لي يقول حريبا عبادي سنية إلهي عدي أركي ميصبا أني إلهي بس لفقينا ونبعه دي اللي إريو وطن كان لي يقصاره وقصة بيني تفكر الله سبحانه وتعالى مخالق دي سي وضد كان وأبوري كلا دواناشاها ميدب كودا كلا دواناشاها الوقت دودا إلهي على مدى أنكو قرطا يقصوغن هذا ويغا السنة بإيغا مقولي سنكريو هدو إيدينو هدو إحنو هدو إيريو هدو روحو قصة يوصميو أنيغا إياكا قولي سنية anigana hadafkaygu wuxuu ahaa ma ahayn dadkan waxay caabudayeen waxana sheego hadafkaygu ugu weyn wuxuu ahaa inaan dadka tashwiish laga furin sadaqada la baxayo ee dadku ay sadaqada la baxaan is caawiyaan oonan ma garanaysaa dadkii kalsoonidii ay isku qabeen la dilin waayo dadka sadaqada ururiya waxa lagu ogaa dadka ducaada dadka ma garanaysaa dacwada ka dhaxwada dadka wanaaga dadka ka dhaxwada ay aayeen kuwa soo jaasjaasa ama kuwa ma garanaysaa soo ruxruxa ama kuwa ma garanaysaa kuwaas meeran ahayn
so iyagu maxay u sameynayaan in ay dadka ka dilaan kalsoonidii lagu qabay ducaadda in la is aamin waayo in ma garanaysaa wixii la is aamin waayo taas ay u socdaan annaguna xadka ilaahay ciddii soo dhaafta dee askarteedii baa noo heegan baan ku jirnaa intaas kadib walaalkan Soomaaliyeed ee muslimka ah ee ku nool qurbaha gaar ahaan dalka Switzerland waxaan kula talin lahaa in ilaahay dartiis uu iskaga dhaafo maxaa yeelay marba haddii hadalkii aad malada u maleynaysay ee aad ugu tilmaamtay in Samiixa Khaliil ay caabudo shaydaanka ay maanta in ay soo fariisatay ay ka hadashay cadaysayna in waxaas iyo wax u dhow xitaa inaysan shaqo ku lahayn war walaalow horena waa kuugu sheegay maanta ama caawana waa kuu sheegayaa walaalow maanta waxaad haysataa fursad aad ku tiraahdo walaalahii Soomaaliyeed ha iska cafiyaan waliba ogow qoomka aad ku tilmaamtay gobadhan iyo dhalinyaradan kale inay ka tirsan yihiin ma aha qoom haysta diinta islaamka xitaa gaalada ayay waliba ka sii ciqaab badan yihiin wayna ka dhaqan xun yihiin ilaahay dartiis ayadana waxaan uga codsanayaa in ay iska cafiso waa bil ramadaane sidoo kale walaalkan waxaan leeyahay haddii aad isleedahay views badan raadi ama followers bartaada TikTok waxa ku jirta dhowr boqol oo kun oo waliba kugu soo raacday waxyaabaha wanaaga ah ee aad soo gelisay maanta in aad barahaaga social media aad ku soo daabacdo gabadhan waxa ay caabudaa shayaadiinta ma ahan wax sahlan ee ugu dambeyntiina waxaan kugula talin lahaa in aad iska wacdid walaashaas ama gabadhaas islaamka ah ee Soomaaliyeed kuna tiraahdid walaalay iska cafi fursadan waxa laga yaabaa inaysan ku soo marin ugu dambeyntiina markii laga soo tago waxyaabaha aad baraha bulshada ka maqleysaan ee ah in Samiixa Khaliil ay ka tirsan tahay qolyaha shayaadiinta caabuda waxa la iloobay romantigii ay noo soo deen jireen walaashay Samiixa iyo waliba saaxiibkay Dirisla Cabdi inkasta oo maalmahan ay wadeen inay caawiyaan dadka masaakiinta ah dhowr program oo ay qabteen ayaa waxa ay ku aruuriyeen lacag ka badan $100,000 waxa ayna safaro ku kala tageen dalka Kenya dhexdiisa xeryaha qaxootiga ku yaala magaalada caasimadda ah ee Nairobi dadka ku dhex daruufaysan sidoo kale intaas kuma ekeenay waxay safaro ku tageen dhulkii Soomaaliya ay ugu weyneed magaalada caasimadda ah ee Muqdisho hadda Dirisla Cabdi waxa uu ku soo laabtay dalka Kenya sida uu maanta muuqaal uu soo dhigay bartiisa YouTube-ka uu ku cadeeyay sidoo kale Dirisle ayaa maanta waxa uu ka hadlay in uu toos ugu soo wareegay dalka Kenya gaar ahaan caasimadiisa Nairobi Dirisle Cabdi iyo waliba Jack ama qurux ku dhiigle ayaa waxa ay soo duubeen muuqaalkaas ayaa waxa ku jirtay hadallo badan oo adinka idin la noqon kara kaftan inay ahayd laakiin aan kaftan ahayn oo u badan wax run ah waxaana kamid ah sida aad hordhaca barnaamijka ku soo daawateen in Dirisle Cabdi la yiri kaliya miya gurigan diyaarsaday sida qurbaha oo kale waxa fiican in dumaashi ama jaceelkaaga in aad wax isla qabsataan inkastoo Dirisle oo si kaftan ah uga falceliyay dadka Soomaaliyeed intooda badan ee kala taageersan Samiixa iyo Dirisle ayaa waxa ay jecel yihiin sida ay haddaba ay baraha bulshada soo geliyaan in ay noqdaan lamaane noloshooda ku midoobay taageerayaashooda ee ku xiran barahooda social media ayaa waxa ay u soo qorayaan Dirisle iyo Samiixa waad isku nuureysaan ee maad barnaamijkan aad baraha bulshada ka wadaan maad ka dhabeysaan wallow ay jirtay 2 bil ka hor in King CK iyo waliba Samara in ay baraha bulshada ku jilaayeen dhowr week romantic inkasta oo markii dambe uu ku soo dhamaaday in ay sheekaduba ahayd pranki laakiin ogow Samiixa iyo Dirisle arintooda lama dhayalsan karo brankina laguma tilmaami karo maxaa yeelay hadda xiriirkooda si toos waxa uu u socdaa in ka badan 2 sano Dirisle inta uu ku sugnaa dalka Kenya iyo waliba safarada uu ku tagay Muqdisho waxa garabkiisa ahayd saaxiibtiis Samiixa Khaliil xogtan sirta ah ee aan caaw idin soo helay ayaa waxa ay sheegaysaa inkastoo aan rabin inaan ka sii hordhaco walaalahii farxadooda misana ceeb iyo wax xun ma aha haddii aan si shaaciyo maxaa yeelay labada qof ee isguursata waxay la mid yihiin ayagoo dhisay masaajid guurkana waxa ku jira ajar kullee aniga shakhsi ahaan waa ka warqabaa barnaamijka rasmiga ah ama xiriirka rasmiga ah ee ka dhaxeeya labadan shakhsi haddana ilaahay waxaan uga baryayaa in uusan dhexdooda soo gelin tafaraaruq iyo waliba dadka nacab laba qof oo hormartay ugu dambeyntii waxaan leeyahay
Samiixa iyo Dirisle iga raali noqdo caawa ama maanta maxaa yeelay waxaan ka sii hor dhacay barnaamij aad rabtaan in aad Soomaalida hal mar oga naxisaan laakiin ogow maamaah ayaa waxa ay ahayd geeri iyo gurba labaduba ma qarsoomaan waana sababta aan caaw programkeena u soo daayay ugu dambeyntii waxaan idin leeyahay Ramadaan Mubaarak daawadayaal waxa idinkaga tagayaa sama iyo salaama